anagana waa inaanan qiimeenin xumaan kasta oo naloo geysto oo aan ka soo qaadno wax inta bacaad ku qornay isla markaana dabeeluhu ay tirtireen wanaagana aynu meel xafidan ku xafidno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan saaxiibada qaaliga ah ee ku xiran Hargal TV Ramadaan Mubaarak. waxaan kugu hambalyeeyaa bisha barakeysan Ramadaan oo gabagaba ah isla markaana lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay. Allah naga dhigo kuwii iyagu ka faa'iideystay Ramadaanta isla markaana wax waliba looga baahnaa inay qabsadaan bisha barakeysan ee Ramadaanna si wanaagsan u qabsaday. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay waxaan kugu soo dhaweynayaa gacmo furan. waxaan ku leeyahay subscribe inoo saar channelkeyaga. haddii aad qayb ka tahay saaxiibadeeni hore ee inala socday ama muuqaalada aynu soo gelinana daawan jirana adiguna waxaa ku leeyahay soo dhawow mar kale oo sii share garee muuqaalka. waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo oo aan idin la wadaago haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo muuqaalkan hadda duubi doono aad fiirsan doontaan sheeko yar oo micno aad weyn xambaarsan. sheekadan waa macquul inaad hore u akhrisay, waa macquul inay kugu cusub tahay. aan bilaawo sheekadan. laba wiil oo saaxiibo ah ayaa waxay dhex lugeynayeen meel keen ah ama meel cidla ah oo kale. labadii wiil sidee u socdeen waxa dhex martay dood. waxaan ognahay qof waliba ama dad badan dad xoogaa halka badan dameen marayaan in doodi ay dhex marto nuucay rabtaa doodaasi. labadii wiil sidee u doodayeen doodoodu waxa ay gaartay heer mid kamid ah labadii saaxiib ee keenta dhex lugeynayay ee wiilasha ahaa uu ku dhuftay saaxiibkiisa dharbaaxsho. saaxiibkii la dharbaaxay isagu waxa uu sameeyay falcelin uu la yaabay saaxiibkiisii wax dharbaaxay. wax kalena ma ahane waxa uu dhulka ku qoray markii la dharbaaxay kadib isagoo xanuunka dareemayo maanta saaxiibkeygii ugu wanaagsanaa ayaa i dharbaaxay. waa arin la yaab leh. intaas kadib socodkoodii ayay sii wateen. markay xoogaa sii socdeenna waxa ay go'aansadeen meel biyo ku jira arkeen oo meel god oo yar oo biyo ku jiro. waxay go'aansadeen in biyaha ku quweystaan maadaama cambaar dhan lugeynaya ee daalan yihiin. saaxiibkii la dharbaaxay ayaa waxa uu sameeyay ul meeshta la soo qabsaday. wuxuu damcay inuu biyaha sidaan oo kale ugu cugsado laakiin ushii ayaa si ka noqotay oo waxa uu noqday mid isaga biyihii ku dhaca. markii saaxiibkii la dharbaaxay biyaha uu ku dhacay saaxiibkii wax dharbaaxayay wax kale ma uusan sameynin waa uu caawiyay saaxiibkiisana biyaha ayuu ka soo bixiyay. laakiinse nasiib wanaag saaxiibkii la dharbaaxay ee biyaha hadan laga soo badbaadiyay ilaahay wax badbaadiyay waxa uu sameeyay arin kale oo ka yaabisay saaxiibkiisa. asxaankii loo fala ee ahaa in biyaha laga soo bixiyo ayuu waxa uu ku qoray dhagax meesha yaala maanta saaxiibkii ugu wanaagsanaa ayaa i badbaadiyay. markii hore wuxuu ciid ku soo qoray saaxiibkii ugu wanaagsanaa ayaa maanta dharbaaxay. haddana waxa uu ciid dhagax ku qoray saaxiibkii ugu wanaagsanaa ayaa maanta i badbaadiyay. saaxiibkii wax dharbaaxay misana saaxiibkiisa haddana caabiyay ayaa waxa uu weydiiyay kii la caabiyay marna la dharbaaxay. saaxiib markii aan ku dharbaaxay waxaad ciid ku qortay maanta saaxiibkii ugu wanaagsanaa ayaa i dharbaaxay. markii aan ku caabiyana waxa dhagaxa ku qortay maanta saaxiibkii ugu wanaagsanaa ayaa i caabiyay. sababtu maxay tahay ayuu yiri. saaxiibkii la dharbaaxay marna la caabiyay ayaa wax uu ku jawaabay markii uu qof ina waxyeeleeyo waa inaan ku qornaa ciida halkaasi oo ay dabeeluhu tirtirayaan. markii uu qof ina wanaajina waa inaan ku qornaa dhagaxa oo aysan dabeel
tirtiri karin yacni markii dhagax wax lagu qoro wax dheedheel ku tilmaamay ma ahan wanaagin sidaas ayuu yiri saaxiibkii wanaagsana anagana waa inaanan qiimeenin xumaan kasta oo naloo geysto oo aan ka soo qaadno wax inta bacaad ku qornay isla markaana dabeeluhu ay tirtireen wanaagana aynu meel xafidan ku xafidno intaas ayaynu ogtahay sheekadii yareed ama qisadii yareed ee aan maanta idinkugu soo talagalay isla markaana aan soo akhriyay oo aniga markay soo jeedisana kadibna aan jeclaysay inaan adiga hadii daabanayo aan kula wadaago aad ayaad u mahadsantahay daawashada muuqaalkana waan kaaga mahadcelinayaa fadlan hadii aad channelkeena ku cusub tahay Hargal TV subscribe inoo saar lana sii wadaag saaxiibadaada kale muuqaalkan oo share garee